بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن أصحابه الكرام البررة ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله منها. ثم أما بعد ولا ليال وبرنامج كان الديني oo aynu dib isugu soo noqonay intii bishii Ramadaan aan ka baxnay kadib Allah naga aqbalo soonkii aynu soonnay iyo acmaashii wanaagsaneed ee la nimid dadka muslimiinta meel ay joogaan dhamaantood Allah ka aqbalo. haddana bishii kale wanaagsaneed ee ku xigtay maan joognaayo bilay ka sii wanaagsanaan oo ka sii dambeeyaan Shawaal bil ku dhex jiraan. haddaba barnaamijkan wuxuu ahaan jiray barnaamij ku tacalluqa axkaamta islaamka. maanta lugta uu la soo gelaya axkaamta islaamka oo wax ku saabsan weeyaan waxaana uu ka hadlayaa arrin ku saabsan aniga naftayda ayuu ka hadlayaa. waxaa yeelay maanta ummadda Soomaaliyeed meel aad u hooseysa ayay marayaan. xoolahoodu ma badbaadaan oo maalkoodii dad baa suu doonto ugu tunta. dhiigoodii sidaasoo kale waa la banaystay, cirdigoodina waa la banaystay. waxyaabaha la banaysanaya markuu shakhsiyaan caadiga ka timaado wax dhibaato ah looma arkeen, laakiin waxaad moodaa hadda in la isu sharciyeeyey oo ay dadi diintii ugu soo marayaan, kay dilahayaan iyo kay dhacayaan iyo kii ay cirdigiisa ku tumanayaan intuba ay ka suurtagelayso noocaas. haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala bani aadamka wuu karaameeyey, cumuuman bani aadamka wuu karaameeyey. gaar ahaan qofku markuu mu'min noqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu rumeeyey ee diintiisa uu ku qancay, markaasaa si gaara haddana bani aadamka ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkaas usii karaameeyey oo ruuxdiisuna ay daahir tahay, isaga dhanbana uu nadiif yahay. qofkaasi dembina qofku mar hadduuna macsuum ahayn waa ka dhacahayaa. haddaba nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay dadku inay ciyaalkii ilaahay yihiin, ilaahayna ugu jecel yahay qofka ciyaalkiisa u roon uu ugu jecel yahay. markii ilaahay ka hadlayay subxaanahu wa tacaala arrintaasna wuxuu yidhi waaladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri maktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa ihman kabiira buuri. haddaba kuwa mu'miniinta dhibahaya, naftooda u dhibahaya, maalkooda ku dhibahaya, cirdigooda oo xadgudub u geysanaya, waxay dadkaasi ay dembi weyn baa la sheegay. buhtaan waa iftira, yani markii buhtaan lagu yihahdo waa ihman mubiin, ayadaa saas ahayd carabka iga dhacay. marka dembigaas weyn ee cad haddana oo aan geel lagu soo gabaday aan jirin oo haddana been abuurashada ku salaysan baa lagu tilmaamay. bal waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala xuduud bay noo soo dejiyey. xuduuddaas markii loonoo soo dejiyey waxaa lagu xeeray si aan la isugu xadgudbin, shuruud adag ayaa lagu xeeray. waxaa ka mid a maalan qofka zaaniga ah ee doonaya inuu lagu ooyo xuduudda lagu ooyo xadkii uu sameeyey ama dembigii uu galay xadkii laga oofiyo, qofkaasi in la yidhi waa inay 4 qof oo rag ah oo caadiliin ah ay arkaan si yani shibhu mustaxiil ah ayaa laga dhigay. lagaba yaaba in mustaxiil la gaarsiiyo, waayo 2 qof oo bannaan isla tegi oo ummaddu ay say doonto u daawanayso way adag tahay in la helaan. caynkaa markay tahay yuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka cabiray haddaana shuruudaan la buuxinin 3 nin oo caadiliin ah oo ahludiina ayaa aragtay, sidii uu ahaabeen u arkeen way fuliyeen. fa ulaaika cinda allahi hum lkaadibuun bu ilaahay subxaanahu wa tacaala
يعني إلهي أكتسوا أو كبينا ريال واقع الرب وارن واقع هالرمايو وأرد استيدون لكن حاجة الشرعية وحاويها إلهي أكتسوا حكاهانيا كاذبين بكاهانيا ما تمرك وحاويها ضدكي si kasta ayaa lagu xadgudbaya laakiin waxaa sii daran markii dadkii loo qaateenka ahaa ee iyagaan hadalkooda la beeninaynin ay isku dayaan inay hadday iftira la imanayaan iyo been abuurasho ay kugu been abuurtaan haddii ay doonayaan inay maalkaaga banaystaanna aayad iyo qiil inay ku waayeynin markay naftaada tahayna ay kugu xujaysanayaan inaad ridowday oo ay markaas sidaas kugu dilinayaan marka dhiig aad u fara badan baa daadanaya caalam islaami gaar ahaan dadkeena Soomaaliyeed waxa daadinna waa ku aayad iyo xadiis daliilaya ka laga daadinna waa la mid isaguna oo laba isma xagga diinta isku dhaanta ma ahaanin maalkii meel hadii uu yimid maalkii in ruuxi la dilaya maalkiisi maxad u maleen ciddiis maxad u maleen Soomaalidu waxay tiraahdaa geel culadiisu durdurisay aarinkiisa maxad u maleynaysaa meeshii culimadii ay banaysteen markaas iftirihii iyo dhaci iyo dilkii banaysteen iyaga oo shaatiyo kala duwan qaba xaqiiqadana iskaga mid ah oo laga yaabo inuu midkood leeyahay dilka hebel la dilay ma banaano isla markaa dil kale fadwoonaya in la dilo dhaca hebel la dhacay ma banaano leeyahay waa asbaab muayyan oo adduunyo ku saabsan buu awgeed u diidayaa laakiin dhinac kale ayuu banaynayaa waxaad ogtihiin mujtamaca Soomaalidu inay mujtamac muslim yahay adduunka taariikhda dhan baa marxaati kacaysan oo haddana mujtamac sunni ay yihiin kana raali noqdeen madhabka imaam Shaafici rahimahullahu ta'ala oo madaahibta muctabarka ah ay ka raali noqdeen imaamkaas oo loo aqoon jiray Naasir sunna imaamkii sunnada u gargaaray loo yaqaano la og yahay ninkii u horeeyay waxyaabaha hadda maanta la ictimaado محل اجتهادك اصول فقه كوكياهي سميي بو اها مصطلحات كحديث نفتودا في كتاب كيس رساله ما لو سو قاطو تو اسغو سميي اون با علماء marka ka sii dhamasheen ilaahayna wuxuu u gargaaray madhabkiisa inuu noqdo madhabka ugu qawisan ee adillada muttafaq ah kaliya haysta ay daliil isku haysto aan qaadanay alkitaab was sunna wal ijma' wal qiyas afarta daliil kaliya ayu ihtimaala wax kale oo ihtimaado oo madhabkaas daliil ah lama hayo markaas ilaahay wuxuu ku irsaaqay boqolkiiba 99 mufassiriinta islaamku inay madhabka noqdaan boqolkiiba 99 dadka luqad u khidmeeyay inay iyaga noqdaan boqolkiiba 99 dadka u khidmeeyay cilmi aqeeda iyaga noqdaan boqolkiiba 99 dadka taariikhda u khidmeeyay iyaga noqdaan xadiidkana iyaga lagu tilmaamaa inta kale waa farqutris inaan nisbada gaarin baa laga yaabaa taas marka waxa qiraya kuwa madhabka iyo kuwa madhabka kama qaadanay laakiin kuwa aan madhabka ahayn ayaa qiraya orada jirta culimada islaafiyada waxay yiraahdaan afarta madhab markay muqaaranayaan madhabka Shaafici waa inay rijaal wa kutub wax kutubna la rijaal leh madhabka Shaaficiga ayaa jira leeyri kutub bila rijaal waa madhabka Xanafiga ay yiraahdaan rijaal bila kutub waa madhabka waxa kutub bila rijaal waa madhabka Xanafiga رجال بلا كتب ومذهبك waxay yiraahdaan Maaliki madhabka Xanaabilada madhabka Maalikada meesha ay ka saareen ayaa moodaa waayo waana madhab mutashar aad u weyn adiladiisu qawi tahay imaam Daad Hijra uu sameeyay laakiin rag waaweyn ma yeelanin sida raggan oo kale mana yeelanin kutub muctawar qawi ah oo aad u fara badan umadu ay si wax loogu nafcido yaani nisbada loogu talagalay ma helin ma laha laakiin nisbada loogu talagalay ma helin hada walaal bishii June markii ay ahayd 14 sheekh shuyuuqda Soomaalida kamid ah oo ku nool magaalada Nairobi ayaa wuxuu yiri waxaan ka hadlahayaa Soomaalidu sida ay shiicada ugu faaftay isla markaa isoo iska dhagatiraya ama halmaansan dibka Soomaali ka dhacaya inayna shiica ku lug lahayn ee Soomaalida dhaxdeeda sunniyiinta ay tahay ciidamada jooga iyo waxyaabaha ka dhax jooga isku haystaan awgeed iyo wixii gargaar u joogana dad kale ajnabi oo Soomaalina ahayn muslimiin ahaynba inay yihiin haddaba isagoo taa dhigaha ka furaystay ayaa wuxuu yiri waxaan ka hadlahayaa shiicada saameynta ay ku leedahay Soomaalida waxyaabo ayuu sheegay
anu waxaan aaminsanahay dad badan aamini karaan inuu isagu ulajeedadiisu ahay dowladda inuu weeraro oo uu ka raadiyo dowladdaas inuu wejigeeda u tuso caalamka ama dadka Soomaalida ee kale ama dadka wadaadada ah dowladdan inay masaarkii lagu tagay masaaraan hay qaaday oo dadkii meel xul ka tuurayso hase yeeshee wuxuu sheegay ashyaa buu sheegay ashyaadaas oo ay inay sax tahay in kale aan hadda anigu sugi karin aan fiirinina waayo maana Soomaaliya tagin Muqdisho ma tagin dowladana ma yihiin u shaqeeya oo ogaan kara siyaasadka noocaas oo kala ah inay maraakis jiraan buu sheegay inay arday la qaado uu sheegay wuxuu ishaaray oo halka uu ka ishaaray inuu arkay TV ka arkay nin sidoo hadalku u dhiga caana oo isaga jaamaca islaamiga ka wada baxeen oo waliba ku taxdiid ka baxeen oo shiiciyoobay oo TV ka bixinaya daraasa ayuu arkay marka horta caannimada qofka raadinaya caan ha noqdo laakiin waxaan ku faraxsanahay ilaahina inaan naqaan subhanahu wa ta'ala aanan caannimo wax la yiraahdo raadinayno jirin way warba uma hayno waxa aanu ku hadlayno iyo waxaan falaynay mudadii tagtay ilaa aqbalay iyo la aqbalin marba uma hayno haddaba qofku u jeedo ruuxaasi ama sheekhaasi oo ishaarayo talalow waayo ma qof aan la garanayna oo malawaala oo mudtuula mise waa arrin sax ah uu sheegayo bal waxaan ka codsanayaa qolyaha farsamada inay noo soo gudbiyaan codka sheekhaas oo arrintaas sida uga hadlaya ayaan ka codsanayaa magaalada Muqdisho markas baa uga furan magac leh klinig iyo isbitaal kaalmo iyo waxtar meeshaas ay dadka ka urursadaan dhalinyaro fara badan scholarship iyo minax daraasiyay siiyeen oo way qaadeen oo wax bay soo barayaan telefishinka Muqdisho maalin dhaweyd waxaan ku arkay nin caan ah oo jaamaca islaamiga ka wada baxnay oo kuliyatul hadiith ka baxay oo shiicoobay oo wax ka jeedinay war qabiil baa la isu laayay oo gobolaysi baa maanta qoorta la isugu jiraa oo masaa'ibta ummadan haysatay wax sahlan ma aha marka ay timaado wax la yiraahdo shiica iyo sunna hadana meesha isku heshay waxa la sugayo maxay tahay dan laga malaha waxoogaa xoolo la haystaa nimanka meelaha jooga waxoogaaga yarkay qaadanayaan baa muhiim u ah laakiin ummadda diinteeda inay ximaayayaan oo ilaaliyaan muhiim ah wixii galaya ha galo wixii cunayana ha cuno masaa'ibtaas iyo intaasoo fikradood iyo balaaya dhulkii soo gashay dadkii oon wacyi lahayn oo gaajaysan oo iska dhibaataysan oo rafaadsan oo maanta u jilicsan cid walba u jilicsan khaasatan cidii wax taraysa u jilicsan ayaa waxa soo dhan maanta soo dhex galeen aaway dadkii ka murgi lahaa annagana waxaan ku dhex baaba'nay laba qolo dhexdood laba dibiyo hardamaya ayaan dhexdooda ku baaba'nay qolo kuraasi ka luntay oo waalan majaaniin ah kuraas baa waa shay miyir kale male ama inuu ku fadhiisto ama inuu dhinto oo taga mooyaane miyir kale male majnuunka kuraasta iyo jagooyinku waaleen waa qolo dan qabiil kama shaqeeyaan dan gobol kama shaqeeyaan dan wadanna kama shaqeeyaan laakiin waa danayste kursigaasay ka gashay maalinku helana waa xasilaya maalinku waayana waa dagaalamaya goormuu kaasi noqday mid ummad u taliya goormuu soo noqday mid masaalix ummadeed xambaarsan fi'ada labaadi iyo kooxda labaadi waxa weeye waa niman ganacsata ah oo ummadani u afduuban tahay oo haddii nidaamba ummadda u soo noqdo rumaysan jaanisyo fara badan oo haystaan iyo tuubooyin meel ugu jiro nuugayaan inay ka baaba'ayaan sidaas daraaddeed nidaam oo dhan bay la dagaalamayaan inuu wax soo noqdo ummadan isku soo noqotay la dagaalamayaan waxoogaa dhaqaalana waa haysteen oo xaraam ku soo gashay warma labadaas qolaan u afduubnaanayna ayna almasaalix markaas waxa weeye maalinba meel maalinba qaab maalinba waji maalinba si annagana waxaan ka dhammaan laanahay meeshan inaanu taxliilino oo koox la safanno oo nuqolo la safanno oo qolo u dabacno war yaa lumaya dalkii baa lumaya
ummadii baa lumays oo masaalixdii baa lumays oo culayska saaran fiiri oo meesha la yaala fiiri ma waxa ku quman inaad maanta mid safiih ah antaad garab istaagta aad afkaartiisa taxliiliso alashan reer baa kala dhaxeey alashan kooxnima kala dhaxays alashan deegaan baa kala dhaxeey war maxay taraysaa 30 sano ku dhawaad baa waxa ku soo jirteen haday meel idin gaarsiinayso in sheekadii cusub maalin ba dhinac loo dhigo oo uquusha yaani waxa weeye la rogrogo oo nala wareeriyo iyadoo masaa'ibtaas oo dhan umada haysato annagana aanu fadhi ku dirka ka taxliilino oo meel walba gasho oo culimadii ay saan noqdaan oo talabatul cilmigi saan noqdaan oo khaasadii umadu xataa ka fayoobaan weydo waa wax aad looga naxwa ilaahay tabaaraka wa taala waxaan weydiisanaynaa in umadan caafiyo walaalayaal qofka uu ishaarayo horta waa miskiinkaygan faqiirkan ilallah ee halkan fadhiya Cabdullaahi Sheekh Maxamed Sagal weeyaan wuxuu ku magacaabay ama uu ku tilmaamay inaan ahay qof shiici ah caanimada uu tilmaamayna ma aaminsan inay jirto hase yeeshee wuxuu tilmaamay inaan shiiciyoobay waxay taasi tusinaysaa inuu dhab u og yahay xaqiiqo oo la socdo ayay tusinaysaa aniga isaga markaa inaan shiiciyoobin sidee buu ku ogaan karaa waxaa suurtagal ah inuu helo wax aan qoray oo uu markaa xujaysto waxaa suurtagal ah inuu helo waxaan akhriyay oo iyada nafteedu ka soo qaato waxaa suurtagal ah in aan labadooda ka niqaashnay suurtagal weeye haddaba si loo ogaado oo arrintaasi dadkoo dhan ola socdaan ma dhicin mana suurtagelin labadooda inaan ka wada hadalno mana dhicin inaan qoray oo arrin noocaas aan qoray akhriska aan akhriyey kutubta aan ku akhriyey halkan iyo kutubta meel kasta aan ku akhriyey iyo muxaadaraadkan bixiyeyna hal kelimo oo arrinta ku saabsan kama usalayo waxaa yaab leh isagoo 96 ugu dambeysay inaan isku aragnay masaajid meesha Nairobi la 7 Street isagoo maray isku aragnay 5 bilood oo 10 habeen la baan waxaan deganaa 12 Street Nairobi isna wuxuu degan yahay 7 iyo 6 meelahaas u degan yahay waan is aragnay waxba ima weydiinin 8 kitaab baan meesha ku akhriyay masaajidka 8 kitaab ayaan muddada ku akhriyay oo aan ahayn qarsooreeda mikrofoonka laga sii deynayay waa mid weeye saddex kamida mustalax bay ahaayeen inta kale waxay ahaayeen kutub kale oo kutubta islaam kamida uu kamid yahay kitaabka Imaam Nawawi ee aadaabta quraanka ka hadla xamalta quraanka ka hadla uu kamid yahay saddex muhaadaro oo aan kaga hadlay meeshaasna way jirtay inta hadii uu og yahay oo xilligaas iyo ka hore uu Cabdullaahi Sheekh Maxamed Sagal baan noqday shiici uu maqlay nin daacina uu yahay ummadda wax u sheegaya dadka wax u sheegayaan kamid nahay laba xaalo way u sugnayd mid weeyahana inuu noo naseexeeyo naseexadaas uu doonayo inuu dadka gaarsiiyo kamid baan nahay noo naseexaya meesha way jirtay midda labaad oo loo baahnaa waxay ahayd waxyaabaha uu aatiqaadsan yahay laba qof oo jaahil kala amanin isku arday baan ahaan jiray wasu u sheegay naftiisu kisawri baan ku wada jiray jaamaca islaamiga ku wada jiray inuu wuxuu ahaa intuu iga ani weydiiyo uga ithbaat garayo haddaba sidaa marka ku hadlay arrintaas waxay u noqotay fajcay u noqotay ama kaag bay u noqotay waxay noqotay inaan raadiyo sidii aan u wajahi lahaa waxaase ay tustay caqliga markaan dad khubaraan aan la showray inaan isaga nafti sheekha la hadlo waan wacay waana sheekaysanay su-aalahaasna waan weydiiyey wuxuuna sheegay dad uu ku kalsoon yahay inuu arrinta ka qaatay aayaddii markaan u hormariyey in jaakum faasiqun binaba'in wuxuu ka hor keenay dadkaasi faasiqiin ma ahaanin dad faasiqa ma ahaanin buuri bal dadka magacow baan idhi anigu fidmo uma jeedo ayuu ku jawaabay haddaba waxaan ku yidhi fidmadu way dhacday already cirdi baad ka hadashay laakiin laba walaad oo walaalo ah ayuu ishaaro yar ayuu taabtay wuxuuna sheegay xaafadda Southall isaga oo ka qadaynaya dad 7 gaaraya 7 rag culimo gaaraya oo waliba dadka ah wuxuu oo reerka ah inaanu isla qadaynay oo yiraahdeen Cabdullaahi wuxuu isku qanciyay inuu shiica yahay isku qanciyay marka qaflatu saalixiin baan oo kara haduu inta intu iska qaato la orday way dhici jirtay culimada qaar kamid ah inay ku dhacay laakiin waa lagu daciifin jiray dadkaas
وحاجة حديث كان لا يقانا إن غفلة الصالحين أول لو ضعيفيه ولا غونجري ما أهين إن أي وح أين أغانم أو أي وح كل ضعيفيان أما أي كل غاقان ما أهين بل وحي أهين إنه قاركو صار أردان محدثين سلا يقاني يقول يا هارينا كيستاهل بل الموسيقى كم غلط إيه كله أو يعني الموسيقى كيرسي لكن علماء المعتبر كده هذان وح لا قاورة ما يا خلق الجاجوس كيري ضمك الكيري أي هذان المهم حويان إنه قاطيب الشيء كلام دودن إنه تاس علم تاين علم هين كلام أنا دودن أنا أكون رأسا إنه طريق علمي أو هين طريق ذمي أو كل إنسان شبهة كل إنسان دم برا دبل مورئة إنه يو تعالى هو أيان هذا إسكان عفوا حنكوري وأنا أكره الله يا أنا ما يكون صوت مسائل كل صوتاي وحول المركز أنا مسادر بالك قاطي مسادر تيارون نقض وقت يسي وقت باسيي بالبانو قبتي بشر رمضان آخر كذا أما دوالي لم توصل هذا بانين وحاد نعضي إلى الله أو قراعي تلفونكي ويقبل واي مر الله مر كان تلفونكي رمضان كانت توانكي قدام لحدي ساعة كوعي إيانا قبل واي تاكسي مسبان أدري تاكسي مسيد كاس أن أدري كذب وحوق بالله كذب إن وصوها لندن كهر الله مصوها لن أو وان هو ويساعد الله صوها لي لبن وكميدا قار روا إلى هالين قار روان وجاي ساعد الله الله أنت كل هالين مش يكرو مركا بالله أرنتاس أنا دب أول هالون ولا لو أرنتي وكاد دب أو كرواي يعني تاكسي مسد أدري وحكوس جوا تاكسي مسد كاس أو كوارن هاي رنتي إنه وكأس لها ولا كويا وحان أو قري أو كمية أسمالي الرجوع إلى الحق فضيلة وانيني والحق الله لا بتوا فضيلة وحوان ما تريسو إنا من دين من تكتاق نغطو ما تريسو إنه قفكو يرادو أنا وحاويها وحوانيني وحلوب بها يا مكان الشيء أتكو خلدانتاي إنا أتكالاباتو ولو أتكاليسو قف بني آدم إرلغيسا أتكاليسو قف بني آدم دنبي كجريسو وحاتكو قصبانتاي هذا ولو أمد الداعي وهادتك أشياء إنا أرنتاسو كلا public baad ka tiriyaa public ka noqoto ayay u baahan tahay haddaba muxuu igu soo jawaabay risaalo qoraal buu igu soo jawaabay oo weliba handayada ah waxaan xustaa aayadda qur-aankeed wa idaa qiila lahu ittaqillah akhadatu alcizza bilithmi ayaan xusustay war hadda meeshan ilaahay u noqo oo naseexa ahayd wuxuu bilaabay inuu isoo handado wuxuu bilaabay inuu yidhahdo waan sii kalsoonaaday wuxuu bilaabay inuu yidhahdo muxaadaraad baan guntahayaa muxaadaraad baan samaynayaa aan weliba magacaaga sheegayo oo adig kugu magac dhabayo ayuu bilaabay wuxuu yidhi waxba telefoon isku daalin kaa qaban maayo taasoo tusinaysa inuu nooc takabur ah uu qalbiisa ku jiro nabiguna calayhi salatu wasallam wuxuu laa yadkhulu ljanna man kaana fii qalbi mithqaala daratin min kibrin in yaroo kibir qof kabis ku jirto waxa weeyaan isaga ayay dhibaysaa qof uu waxyeelayo oo kale ma jirto haddaba maxaa uu ka duulayaa oo uu isagu wataa wuxuu watay haysto dhan waa midaas waxa uu soo qorayna waxaan jeclaan lahaa dadka Soomaaliyeed bal inay ila eegaan oo hadday suurtagelaysa shaashada ay ka muuqato iyo nafteeda ayaan jeclaan lahaa wuxuu isagu soo qoray ee telefoonka u soo diray qolada farsamo aan ka codsaday hadday u suurtagelayso waxaad hadda daawateen hadda waad arkayseen waxaa weeyahan qoraalkii isagu uu soo qoray oo ka koobnaa sida arkayseen inay uu leeyahay waan dabagalay arrintaa markaad ila soo hashay laga bilaabo ayaan dabagalay ma seexanin waxaan ka sii qaaday qanaaco waayo 6 qof oo aan isxog og tihiin ayaa intuba ii sheegtay 6 qof ma uuna sheegin waa majhuul alcayn walxaal wax la yidhahdo wax laga qaadan karo ma jirto nabigu wuxuu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam dadka qaar waxay sheegtay hadii la ogolaan lahaa dad baa dad dhiigiisa sheegan lahaa buuri dad baa dad xoolihiisa sheegan lahaa marka taa awgeed muuna sheegin midda labaad sida arkayseen wuxuu hanjabaad buba sii bilaabay anaa laay marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa arrintaa horta inay tahay kutirikuteen aan sal iyo raad lahayn waxaa ka timidna inay tahay xiqdi iyo xasad dadka Soomaalida ah ee ama culimaha ama caamaya ama ay weydiiyay arrimahaas oo kale intay kutirikuteenta maqlan ay weydiiyeen waan u mahadnaqayaa
kuwa aan i weydiinin oo ictiqaadiyay ay ku kadsoomayna waxaan leeyahay ilaahay u soo noqdaa wixii hadda ka horeeya waa cafiya musaamaxa wixii maanta ka dambeeyana ma ahaanin cirdigaas mid loo ogolaanayo shakhsi kastaba inuu iska dhex galo waxaanse mahadnaqaa u celinayaa xaqiiqatan oo fasti i weydiiyey alxaqu yuqaalu sheekh axmed arweys markuu arrintaa maqlay intuu ii yimid ayuu i weydiiyey hadduu magaalada joogo hadduu maqan yahay waa la weydiin karaa markaan anigu u sheegay buuna qancay diintan taasina faraysaa waayo anaa is og adi ma ogid qofka kale qof qalbigiis ku jira ma ahaanin dadka markaa anigu soomaalida ah ee London ku sugan een isnaqaano een isku jahanahay ee wax wada wadi jiray ee isnaqaano ma yaree waa dad fara badan Londonna waa magaalo aad u weyn oo aan iska wareynin waxaan deganahay xaafadda aan ka soo bilaabay South East London gaar ahaan waxaan ka bilaabay markii oo xaafadda Balham Streatham Toowoombarrow hadda deganahay Battersea iyo Roehampton intaas magaalada ka degay waxa laga soo xigay arrimaha waa dad West London ku nool aanu isxog ognahay oo isgaranayno aaminsanahay inay inficaalaad kale iyo waxyaabo kale bal qaarkood ay sheegaan qaarkood ii sheegaan markii loo baahan aan magac dhigi doono inay meelaha qaarkood shir ku qabsadeen aniga ay u ataagsan yihiin ay qabsadeen marka Soomaali waxaan cadeynayaa waxa meesha jooga Soomaali aan la hadlayo waxaan u cadeynayaa dad fara badan arinta dabcan aniga way dhibtay hadda ka hor marka ma way dhibtay in badan waan maqlaayay warigayna kama jixin laakiin hal mar aan ka jixay waa markuu isagana shakhsiyaad muayana oo ka filaynin ay meel la istaageen maanta waan ka jixay sababtu ma ka filaynin arintaas oo kale hase yeeshee dadka Soomaali waxaan u cadeynayaa intii horay u samaysay saan horay u sheegay waxa weeyaan si ula kacale iyo qasad iyo ula jeeda ayna kaan waa kooxda uu tilmaamay ama ku sheekeynaysa iyaga isgarnaana qaar ba qiyaasaya laakiin kuwaasi aakhira ma suuban aduu ku kala biximayno ilaa ilaahay uga soo noqdaan inta kale ku kadsoontay in badan sheekada maqlaysay waxaan leeyahay waan cafiyay inta ka dambaysa waqtiganna waxaan cafiyayo iyo waxaan saamaxaya ma jirto maadaama aan maanta publica ka hadlay ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay maqlayso nin alla ninkii karto leh markii laga baxana arinta haduu TV hada ka waayo wuxuu ka eedan karaa YouTube-ka ayuu ku eedan karaa marka waxa la isku haysto waxa weeyaan Cabdullaahi Sheekh Xasan uu shiciyoobay anu waxa weeyaan nin waxaan ahaa hatta usra ahaan usra diinana ina Sheekh Maxamed Baaraabay waa laga yaqaan aaga faafan oo kala mid ah ree Sheekh Timcada reebti aawe baasha Cabdiqani waa dhashay reeweyna waa ree Sayd Xasan aabahay xaqiisa oo reeweyna waa culimadii ree Sheekh Maxamed weeye ma dhacayn haba yaraatee meel ay laga soo galaan mara iyo anu nin arday ah oo bidaaya oo hadda wax bilaabay oo kutubta qaar loo tilmaamay qaar laga cilinayo nin waxaan ay baaxita oo kitaab shiici akhriyo ku sunna akhriyo ku kala akhriyaya oo hadda ku masiix akhriyaya marka waligay shiica ma aamin ma noqonin oo ilaahay iga sareeyo taa aan qofna uga cabsanayn hal dadku waan fahansinayaan warheeda seef isaaran oo qof uga cabsanaya meesha ma taalo maanta waxaan ku sunnaa waa London qaanuun baa lagu kala baxayaa saacada uu wadaadkaasi warka bixiyay 14 June 17 June baangar lagu laayay dad Masar jooga isaga hal la ogaado ujeedadiisu ahayd in la idilo oo dhiigay banaysanayay hal la ogaado taasi oo sumcadda ka sokow dhiigay naftiisa u banaysanayay taa in la ogaado ayaan doonayaa gaaladan hadda waxyaabaha qaarkood ma dhaqaaqdo waayo ama waxay ilaalinayaan qaanuunka madaniga ama qaanuunka wuxuu ilaalinayaa jinaa'iga midkood buu ilaalinaya laakiin qofka duu marna qaanuun aaminsanayn ilaahayna aqoon wax ka celin kara waxa weeyaan inaad iska celiso waman lam yadud an hawdi bisalaahi yuhaddab birinki xakiimka waman la yadul min nas yudlami marka kii kale waa kii isna beyti kale ku yiri qofkii hadii uu waxba uuna dad dulmiyeyn falcilatin illa darteed bay ahaatay waa dacfi haystay dhibaato haystay dadku inay wax dulmiyaan ayay dadkii noocaas ayeen laakiin qofku markuu ilaah ka cabsanayo waxa ka celinaya diinta markuu ilaah ka cabsanayna ama xoogaaga ama qaanuun baa ka ilaalinaya meesha aan joogo marka qaanuun baa ilaalinaya oo shakhsi oo looga cabsanaya ma jirto dhaqaale aad isleediin oo ininku aad dhaqaale aaminsantiin hal kumi meel aan ka qaato dacwo aan ka qaato waa public waxaan ka hadlay lan yuujad saa Yurub soo galay meel aan public lacag meel aan ka qaato dhaqaale haba yaraatee ma jirto tabartayda xun
aad u yar dacfi ku jiro waxa aan qaban karaan qaban wax intaa in lagu yeeli karana ma jirto laakiin waxaan ilaalin caqaa'ida dadka cawaamta ee lugoynaysaan ayaan ka ilaalinayaa sidaa awgeed wuxuu ilaahay markhaati ka yahay inta intaqaanina igu ogtahay ee dhabtahay ku ogtahay inaanan weligay shiico gelayninna oon ilaahay ka rajaynayaa sidaan ahay inaan ku geeriyodoon meelka maax la gelin ka shilinka aaminsan ama qarin haya wuxuu isagu aaminsan yahay si uu u muujiyo wax kale kaasi wuxuu ku malan sidiisa inaad tahay waayo waxaa layidhi qumayo intaada qumayo ku dhihin bay qumayo ku tiraadaabaa layidhi waxaan hadalka kaga bixi oon ku soo gaabinayaa anigoo cabdulaahi sheekh maxmed sagal ah inaan weligay shiico noqonin shiicana ahayn lagana filaynin waayo nin walaalkay oo saaxiibkay ah oo cabdulawelila wuxuu ka soo tagay iskabeed fi halkan wuxuu yimid intuu qaadan waayo inuu weydiiya halkaasuu ku qancay islaanay run sheeg islaan run oo qaadan layidhi intaasaan kusoo gabagabaynaya billahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh